فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waa maalin jimca oo ay taariikhdu tahay 9kii bishii afraad halkan aanu joognaa waa maxadkii Qoriley ee magaalada Qoriley saad u aragtaan dhismihii baa bilowmay halkan waxaan fariin uga dirayaa qurba joogta reer Qoriley saan hore warbixinta idin kula soo wadaagay anigoo Cabdilaahi Maxamuud Axmed Yaasiin isduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta mashruucani waa mashruuci qolada carabta aanu ka soo qaadnay booradiisi waa tan oo aad arkaysaan waa labadii qol iyo masaajidkii iyo mashruuci kale qolalkii kale iyo maxadkii intiisii kale maanta la bilaabay Qoriley baanu joognaa ilaahay baa mahad leh waxaan u mahad celinaynaa oo u ducaynaynaa marka labaad qurba joogta bahararsame ama reer Qoriley ama ciddii wax la baxday maxadka wax ku sadaqadeysatay iyo ciddii isku qortay ee soo wadaba in ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka u saaro insha Allah ta'ala lacagta saynu warayno $10,000 baa dhiman marka insha Allah ta'ala hal soo dadaalo waxaan sidoo kale si gaar ah ugu mahad celinayaa injineerka meesha qandaraaska loo dhiibay injineer Mahad Ilweyn ama Mahad Cabdilaahi Cubeed isaga iyo kambanigiisaba Kasmaal Construction Company insha Allah ta'ala waxaanu ka rajaynaynaa dhismo tayo leh oo qurux badan oo raasamaal iyo manaafacaad leh baanu ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala inuu injineerku inoo dhiso ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu uga baryaynaa inuu u fududeeyo dhismaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu uga baryaynaa wixii dhaliil iyo ceebana inuu ka ilaaliyo shaqada sida saxda ah ee wanaagsan inuu waafajiyo baanu injineerka uga rajaynaynaa waxaan leenahay hadan injineerku soo dhawow alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أولاً إلهي بمهد إسكاله قوبتان جوجنا وقوبتي محدك ما أنت الشقدي بقى نوب بلعبتي سيفي عمي نوب بلعبتي وقيبتي كواد هدي لهاي إدمه ويناسو عندهم هالشقده دي لهاي إدمه مركان أنت حاجة الشقده وربحين تذكر جدبه وحن هل كان أدو عيني يا ضمان تذكر هير قرلي كولكشن كأه وعد كستله وميل كستشوجة قد تشوج يدي بتشوج بقى juhdiga badan ee lagu bixiyay runtii halkan inay noqoto goob diinta Ilaahay loogu gargaaro dadka juhdiga iyo waqtiga ku bixiyay aad baan ugu hambalyeynay uguna ducaynaynaa ka shirkad ahaan annagu mas'uuliyad baan naga saaran shaqadan dadka deegaanka iyo annaga ku baahi badan waan filayaa sababta oo ah waxa ay ka doonayaan ay ka rabaan waa la wadaagnaa oo haddii ay barasho diimeed tahayna dee waa dadkii waa la wada baranaya waxa aniga ii dheeri waxa weeyaan waa inay meeshaasi noqoto meel customer ii keenta oo aan ku guuleysto dhismaheeda oo runtii waxaan ka aaminsanahay haddii gurigu yacnaha uu cilad keeno oo 10,000 kaaga hadho ama 15 kaaga hadho inaad ku khasaarowday haddaan gurigu 5 guri ama 10 guri ku ama ka badanba marka guri la soo tixraaco oo runtii maartay ku dayasho badan keena baan maartay aad u rajaynayaa balana qaadi doona haddii la haydmo sidaan hore u sheegay aniga ka wakiila muddo sanad ah gurigaas wax Allah wuxuu ka yimaada iyo guud ahaanba yacnaha waxa weeye wax taxadar leh oo dawad aragtaan dhismihiisu balaankiisu u fadhiyana waad u jeedaan shubabkii iyo dhulkii kalena wali goobnay waxaas oo kaabada arkaysaan waa kaabadii la gelin lahaa hadhow toole hadda waa labadii qol qaybsani labada qol waxa ku jira 12 kaabadood baa ku jira marka oo isugu jira gudub iyo dherer marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan wax wanaagsan qaban doono idinkuna noogu soo duceeya aadna waa idinku hambalyeynaya runtii waa arrin ku dayasho mudan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan taaganahay goobta laga dhisayo macadka degmada Qoriley. sida aynu la wada soconno dhismaha laga dhisayo dhulka degmada waa dhul aad u weyn, 6 bilood oo masaajidku uu dheer yahay weeyaan. waxaynu u qalab qaadnay dhismaha qaybta koowaad inaynu fulino oo noqon doona haddii la yiraahdo 6 fasal oo waaweyn oo 8 mitir ah, 4 suuli iyo masaajidkii oo isna 12 9 ah. dhismaha sida aad muuqaalka ka aragtaan maanta ayaa la bilaabay, wuuna socon doonaa insha Allah haddii la yiraahdo. dhismaha waxaa loo kala fulin doonaa 2 qaybood. qaybta koowaad marka hore waxaa la fulin doonaa 2 qol iyo 2 suuli iyo masaajidka. sida ay soo codsatay hay'addu ayaa mashruuca loo fulin doonaa. qaybta labaadna insha Allah sidaan injineerka ka codsanay waa lagu xiri doonaa isagana oo 4 fasal ee kale waa la raacinayaa. bishii 9aad ee sanadkii hore bay ahayd markii aynu isu taagnay inaynu bilowno wax ururinta macahadka. haddana alxamdulillaah lacagta wejigii koowaad oo lacag dhan $50,000 ayaa soo ururtay. qurba joogta reer Qoriley baa doorka ugu weyn ka qaatay. qaybta labaadna hay'adda khayriga ah oo hay'ad carab ah oo lacag $30,000 ballan qaaday inay bixinayso. qaybtii hore oo 17,000 soo fasaxday. qaybtii labaadna maanta soo codsaday in loo soo gudbiyo sawirka dhismaha. marka loo gudbiyo insha Allah waa soo deyn doonaan lacagta 14,000 ee dhiman. iyagana saasan ka rajaynaynaa insha Allah ku soo duceeya. dhismo wuxuu socon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo muddo 4 bilood ah sida aanu kula heshiinay injineer Mahad. muddada 4 bilood waqtiga laga yaabo dadka qaar inay u arkaan inuu waqti dheer yahay. waa dhismaha iyo hawshiisa iyo qofkii fahmi kara fahmaya. muddo kooban dhismaynta leeg laguma fulin karo. injineerka khayr Allah siiyo injineer Mahad Cabdullaahi Cubeed wuxuu ballan qaaday dhismahaas inuu wado oo aanu joojin. lacagta wixii ka dhiman deyn ahaan uga maqanna uu sii dabooli doono insha Allah. uuna ku leeyahay dadka reer Qoriley, jaaliyadda reer Qoriley khaasatan. marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo lacagtaas injineerka aan kula heshiinay waa lacag $74,000 ah. dhismaha iyo culayskiisa iyo baaxadda uu leeyahayna waa la fahmi karayaa. lacagta waxaa hadda gacanta lagu hayaa sida aan idin sheegay iyo hadalkayga hore ka mid ahayd 50,000. 14,000 waxay ka imaanaysaa qolada hay'adda ah. 64,000 bay halkaa ay insha Allah 14,000 aan rajaynayno, 50,000 aan hayno. lacag $10,000 ah ayaa dhiman. lacagta $10,000 jaaliyadda reer Qoriley baa laga rabaa inay xil iska saaraan iyo dadweynaha reer Qoriley miyiga jooga iyo ka magaalada jooga iyo ka Laascaanood jooga iyo ka magaalo kale jooga iyo ka qurbaha joogaba in ay hawshaas xil iska saaraan. haddii Ilaahay yiraahdo waxaa intaa inoo dheer qalabayntii oo iyadana aynu ka dhigi doono haddii Ilaahay yiraahdo fayska labaad iyo dayrkii oo isna la socda. marka dayrka iyo qalabaynta waa isku dari doonaa insha Allah. wejigan labaad waxaanu codsi mar labaad iyo mar saddexaadba jaaliyadda iyo dadweynaha reer Qoriley aanu ka codsanaynaa lacagta $10,000 ah. injineerku uu yiri waa sii dhisaya oo mashruuca waa fulinaya anigu, laakiin idinkaan idinku leeyahay waa idinka sugaya insha Allah in la soo dadaalo. waxaan u ducaynaynaa dhammaan dadkii sadaqaadka la baxay oo macahadka wax ku darsaday. mid walba Ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan u weydiinaynaa muraadkiisii inuu u fuliyo sadaqada wixii uu la niyooday ee uu la baxay. Ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu u aqbalo. dhammaantiin saasaan idinku ducaynaynaa. Ilaahay tabaaraka wa tacaala maalka idin barakeeyo, awlaadaha idin barakeeyo, cimriga idin barakeeyo.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد marka horeysa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa mahad iska leh marka labaad waxaa mahad iska leh culimadii ka shaqeynayay dhisitaanka macadka Qorley oo aanu hadda joogno oo feeskii u horeeyay la bilaabay masaajidkii iyo labadii qol iyo suuliyadii waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa qurba joogta maalkooda ku bixiyay iyo dadweynaha reer Qorley meel kastoo ay joogaan maalkoodii ku bixiyay inay macadka dhisaan macadkii wuu socdaa sida la sheegayna lacag 10 kun oo baaqi noqon doonta 10 kun Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa inoo fududeyn doonaa hadaanu nahay ka ducaada degmada Qorley iyo culimada ka shaqeynaysay isu taagay macadka dhisitaankiisa intaba uga mahad celinaynaa waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa hay'adda carabta ee naga caawisay macadkan feeska hore la bilaabo inta kalena waxa weeye la dhameystiro inta maalkooda halka ku bixiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga weydiinaynaa maalkooda inuu barakeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaada ugu islaaxiyo oo xaasaska ugu islaaxiyo oo dad iyo aakhiro iyo adduunba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu maalkooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu barakeeyo aakhirana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax wanaagsan iyo janno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ugu bedelo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa